qof baan helay oo Soomaali si fiican ku hadli karo magaciisa waa Daniel laakiin Soomaali maxaa loo aqaanaa Dalmar ila sidee tahay hay seetihiin fiican tahay alxamdulillah aad baan u fiicnahay so ii sheeg sidee u baratay Soomaali because Soomaaligaaga way fiican tahay ha aad bay fiican tahay markii hore waxaan bilaabay inaan barto intan Johannesburg South Africa intan dhigay toban bilood baan joogay halkaas kadibna Atlanta baan imid intan Atlanta joogay mar af Soomaali ayaan waan iska bartay inta badan laakiin intan jigjiga joogay jigjiga sanad baan deganay marka si iska caadi af Soomaali aan bartay so jigjiga dadka markay kula hadlayeen maxay dhaheen markay ku arkeen hayehuno seedahay anta ya dad way macanihin because weligood ma arkin wiil cadaan oo ku hadli kara Soomaali waxa jira qof wiil cadaan oo dirdawa degan jiray si fiican af Soomaaliga ku hadla laakiin inta badan oo dadka way sheegeen aniga waxaan ahay ninka ugu horeysay oo ay arkaan haye si fiican oo baratay laakiin Somali book ma laga baran karo ma ogtahay meel kasto Somali different baa looga hadlaa si aniga ma garanay different sida loo dhaho laakiin imisa sano kugu qaadatay 4 sano 3 sano meelaha 3 sano laakiin Mareykan maxaa joogay ilmo oo aabahood iyo hooyahood ku hadli karaan Soomaali oo weligooda baran oo isku ma aha Xuseen laakiin qof cusub oo luqada 3 sano buu ku bartay 3 sano idinka maxaa suubinaysiin imisa sano Mareykan joogteen oo dad Soomaali ag joogteen baran weyneen fiiri laakiin haday dhaqan celiyahay haday samayn jiray haye wa baran karaan but yes inaan videogan soo duubnaan rabay sida u baratiin Daniel aka Dalmar oo Atlanta joogo reer jigjiga xataa oo luqadiisa si fiican ku hadli kara Soomaali